sida ogtihiin ba guddigu wuxuu joogaa magaalada Dhuusamareeb 3 maalmood ayuu joogaa waxa waaye guddigii xubnihiisa intii badneed waa joogaan qaarna weli naga maqan way jiraan shalay waxaan bilownay inaan isdooranno oo gudoomiye ku xigeen iyo xoqooyo ayaan shalay dooranay waxa kale toodoo bilownay maanta inaan dejino qorshihii shaqada oo maaragtay ku hawlgelin lahayn ayaan maanta ka fikirayna ka shaqaynaynay waqtiga anigu xaaladaas ku dhex jirnay ayaa marka waxaan soo booqday muxuu ahaa xubnaha international community-ga oo hogaaminayo SRG-ga loogu yimid maanta طبعا waxay danayhayeen inay ogaadaan sidii heshiiska aan u bilaabayno hawlaha aan qabanayno in dadka oo dhan kulligood aan u yeerayno sida ma taqaanaa ay ku dhamaad doonto waqtiga arintu ay aan isleenahay arinta meelaha soo gaarsiin kartiin su'aalo noocaas oo badan bayna weydiinay kana aad ugu waranay waxaan u sheegnay in rajo weyn leedahay dadka reer Galmudug ayagoo u kala qaybsanayn mucaarad iyo muxaafid ayagoo oo beela gaar ah kala ahayn ayagoo sad bursi ka shaqaynaynin inay laga maarmaan tahay inay isugu yimaadaan magaalada Dhuusamareeb oo ma taqaanaa wixii mashaakil dhexdooda ah iyo wixii mashaakil ay dhismaha dawladda ka qabaan iyo ay qabaan ay wada isku sheegtaan ayagu inaan hawshaas ka shaqaynayno insha Allah dhawaan ayaa la ogaa doonaa waqtigan hawshayna ay bilaabayso ayaan soo sheegi doonaa si rasmi ah soo sheegi doonaa